السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أدبني السلام يا دمان أصحابتك كحولان جنالكا عارنو رفيكيس يسيدو كلا أكاديميكا SWF أما تلجراميسكا SWF أما صومالية فوركس دمتين أدبني السلام يا فيديو غير قابن حلو تلقلي هنا إذا كشرحه أما إذا كفهسيو هب فضود أو أدخل بحي كرتو ويتترو غاقا بانكي واير أديقو استعمالية أي هو صدع سدح شايلا فرشا كدهود haddaba banka weerarku wuxuu kaaga baahan yahay inaad swift code haysato. haddaba video waxaan ku sharaxayaa adigoo aan swift code haysan saad kula bixi lahayd Premier Bank adigoo waliba isticmaalaya Premier Bank iyo IBS waa labada banki ugu waaweyn. inkastoo aan maqlay IBS Bank inaanay withdrawga ka aqbalin brokerka FX Primes marka taana insha Allah taala qof kasta isaga bankigiisa soo weydiinaya brokerka FX Primes inay aqbalaan qolada IBS Bank. ciladu ma xagga FX Primes laakiin waxay xagga ciladu waxa weeye waa xagga bankiga IBS Bank. marka qofku ha soo weydiiyo bankigiisa ha dhaho IBS Bank haduu isticmaalo dad ay ugu shaqeystaan wanarki, laakiin Premier Bank baa si fiican aan u hubaa inay maxay tolo ay step-kan kugu anfacayo si fiican kugu shaqeynayo. marka marka hore sarto waxa soo galaysaa profile-kaaga soo galaysaa. markaad profile-kaaga soo gasho waxaad imanaysaa waxaad ku soo dhufanaysaa deetana qaybta your bank information. marka your bank information ka ayaad markaad soo gasho ayaad buuxinaysaa. waxaad ku buuxinaysaa macluumaadkii Swift code ku yaalay. marka Swift code wuxuu kaaga baahan yahay bangiga code-kiisa, bangiga Soomaaliya ku yaala ee Premier Bank code-kiisa iyo account number-kaaga. marka code-ka badanka way ka sameeyeen yihiin Premier Bank code waxay leeyihiin caana oo warqad kasto Swift code haddaad eegto ay ka wada sameeyeen waraaqaha Swift code ka bixiyaan oo dhan. marka intaas kaliya lagu buuxiyaa. marka imika inta inuu wareegayo ayaan maxay tulsuunaka profile-kaaga ku soo dhufanaysaa kadibna waxaad ku dhufanaysaa your bank information. your bank information marka ku dhufato waxa soo baxay steps-ka ku buuxinaysay. marka imika hadaynu inta uu wareegayo maanta website-kooda wax ka yarsiin. marka intaas hadaynu waraaqaha aynu eegno Swift code-ka bankiga Premier Bank way ka wada sameeyeen kuwa Hargeysa lagu bixiyay kuwa Muqdisho laga bixiyaaba way ka wada sameeyeen. imika hadaynu kuwa IBS Bank imika waa kaas dad soo wada eegto Swift code waa kaas ku sameeyay halkaas BBS MSOS M oo wada capital warqadda Muqdisho lagu bixiyay haddaad eegto warqadda kale Premier Bank Hargeysa lagu bixiyay iyadana Swift code-keeda kale waa yadii BBS MSOS M waa capital iyadana waa same halkaas same bay kooda yihiin. Swift code-ka laga doonayana waa kaasun. marka BBS MSOS ayaad meesha Swift code-ka ku buuxinaysaa. tan warqad kasta aad eegto way ku kala duwan yihiin. maahan waxaan dhaxal warqadan soo qaatay maaha warqad badan oo kala duwan. dad Swift code-ka aad bowda eegto way maxay tolo way halka way kala sameeyeen. markaas imika labadan warqadood taas leedahay wax isku mid xitaa waxaad eegtaa halkaas ma ka sinaha address karkasta Muqdisho district Muqdisho Soomaaliya tan kalena maaha labada warqadood bas ku sameeyaha. marka warqad kasta Swift code aad eegto Swift code laga wada sameeyahay waa kaas event. marka Swift code loo baahan yahay waa kaas. Swift code-kaasna maxay tolo soo qoraalawan xag hoosan soo dhigi doona insha Allah taala soo xarfa ka bitalaad ku qoraysa insha Allah. markuu soo baxo waxaad ku dhufanaysaa halkan qaybta ay ku qorantay your bank information. your bank information baad ku dhufanaysaa. your bank information markaad ku dhufato uu inoo soo wareegay soo baxaya deetan macluumaadkii baad ku buuxinaysaa. laakiin midda ugu horeysa waxa weeye ee loo baahan yahay waa in magacaaga sidoo brokerka uu qoran yahay waa inuu ugu qoran yahay bankigaaga hal xaraf waa inuu ku kala duwanay event. marka waxaad tali horto macluumaadkii ku buuxinaynaa fiidiyogan dheeraad ma dooniyo maanta khad wax weey waa xagga website-ka dhankooda ayay maxay tolo ciladu ka timi. marka hadda halkan soo timaado waa kaas halka ugu horeysa markaad banki information ku soo dhufato halkaas ku soo baxaysa banki name-ku waxa ku soo qoraysaa Premier Bank aad ku soo qoraysaa waxa xarafka xog ka khaldamaysid bank address iyaduna waa loo baahan yahay. imika warqadaha Hargeysa lagu bixiyay dan aragno badankoodu waxa weey waa durdur business center 16 June Hargeysa Somaliland address-koodu waa kaas. sidoo kale kan kale isagana waa same durdur business center 16 June Somaliland kan kale sidoo kale waa durdur laakiin ka Muqdisho lagu bixiyaa iyagu address ma soo raaciyaan. marka address-ka ka Hargeysa ma isticmaalaysaa sidaad ugu qoraysaa durdur business event durdur business sidaad ugu qoraysaa durdur business meeday bank address-kii durdur sidaad ugu qoraysaa ay ugu qorantay kaasaad isticmaalaysaa. marka
durdur business 16 جون business center 16 جون hargeysa somaliland markaa saas umaad ugu buuxinaysa business center 16 جون hargeysa somaliland adreeskaasna ku qoranaysa ma fahanti ragna waxaad gelinaysaa waa account numberkaaga haddaad garan weydo waxaad ka eegaysaa warqadaada maxay tolay banki statementkaaga soo qaadanaysa deetana account numberkaaga halkaas ka eeganaysaa account numberkaaga saad gelinaysaa marka ama gmailkaad ku samaysatay premier bank markaad samaysanaysa mastercardka ayaa lagu soo diraya account numberkaaga marka account numberkaaga halkaana gelinaysaa dadka account numberka ma sina halkan haddaba wey banki switch code halkan la gelinaya halkaas switch code gelina waxay noqonaysaa switch codekaas PBSM taasoo wada kabitaala PBSM SOSM saas weeye PBSM SOS haddana M waa intaas ku gelinaysa halkan haddaba bank IBAN waxaad gelinaysaa waa username kaagaad gelinaysaa bank IBAN username kaaga account kaagan imka aad soo gashay ayaad gelinaysaa event login kaaga marka soo galisay username aad ku soo gashay ka gelinaysa country gaana oo doorasho Soomaaliya ka dhigaysa marka waxaan rajeynayaa inay idin anfici doonto qof kasta insha Allah taala uu tijaabin doona isagoon switch code-kiisa baad doona eegin halkan waxaad gelinaysaa password-kaaga deetana submit baad leedahay marka intaas save garayso waxaad imaanaysaa haddaba banki information-kaaga aad buuxiso meesha kugu save garaysan tahay waanaad hubinaysaa Premier Bank xarafka waxa ka qaldamaysid ERE baa ugu dambaysa marka halkana durdur business haddii magaca sare Premier Bank aad khalado maxay tolay lacagtooda waxay khaldamaysaa marka iska hubi Premier Bank soo qormaysa inaad hubiso sidoo kale adresska sidaas aad isagana sidiisa u hubiso switch code-kana sidiisa aad u hubiso iyadana iyadoo qoraalayadana waxaan description-kan soo dhigi doonaa insha Allah taala inta yar PBS MSOS qof kasta uu qoran karaa intaas event halkan waxaad gelinaysaa IBAN-kana waa username-kaaga inta marka save tiraahdo hadda waxaad dhahaysaa withdrawal baad imanaysaa deetana waxaad dhahaysaa withdrawal from MT4 withdrawal from MT4 markaad tiraahdo waa markaad doonaysa inaad bank wire kala soo baxdo iyo mastercardka labadaba isku meel unbaa soo taabanaysaa withdrawal from MT4 deetana waxaad gelinaysaa amountigii lacagtaad la baxaysay markaad geliso amountigii lacagtaad la baxaysay waxaa kuu soo bixi doona available paymentska ku bannaan inaad kula baxdo Skrill credit card-kaaga bank wire-kaaga laakiin marka ugu horreysay aad lacag la baxayso waa inaad kula baxdaa kaarkii aad ku dhigtay baad dib ugu celinaysaa marka ugu horreysa ma fahanti marka ugu horreysa kaarkii aad ku dhigtay ee dib ugu celinaysaa kadib markaad kaarkii aad dib ugu celiso lacagtii aad kula soo baxday tusaale ahaan waxaad dhigtayba $100 akoonkaaguna waa fariib halkana password-kaad gelinaysaa ma fahanti markaad password-ka geliso confirm baad leedahay deetana marka ugu horreysa waa inuu qofku kula baxaa kaarkii uu ku dhigay marka hore waa inuu kula baxaa lacagta marka kaarkii lacagta ku dhigtay marka koowaad aad kula baxdid mar labaadka lacagtaada waxaad doontaad kula baxaysaa ma fahanti waxaad doontaad kula baxaysaa laakiin marka koowaad waxaa mastiya kaarkii aad ku dhigtay inaad dib ugu celiso mastercardkii inaad dib ugu celiso lacagtii ma fahanti marka ugu horreysa la baxayo uu amountiga soo geliyo halkaas ku arkay available paymentska u bannaan lacagta ugu yar bixi karana waa $60 markaas khadka maanta yar culus waa yar sugana intaasna marka halkaas ka arkay paymentska ku bannaan inaad lacagta la baxdo maanta bank wire baad kula bixi credit card baad kula bixi ka video-gina uu yar dheeraaday marka qoraalka code-ka iyo maxay tahay adresska durdur business center 16 June Hargeysa Somaliland description insha Allah taala soo dhigi doonaa qof kasta uu fahmi doonaa waan malaleeyaa qofkii aan fahminna insha Allah taala wuu la soo xiriiri doonaa soo naga caawiyo arintaas marka qofku markuu imka saas soo galo halkan buu keenayaa marka waxaad arkaysaa paymentska ku bannaan inaad kula baxdo waxa ugu horeeya waxa weeye waa credit card-kaaga inaad dib ugu celiso oo labadaas taas u sareyso baa ku bannaan imika dad ku dhufato bank wire-ka kan ugu hooseeya kan baa available ku noqonaya marka imika wuxuu ku leeyahay user must verify withdraw viewed credit card with their respective funded amounts markii lacagta ugu horeysa waa inuu qofku kula baxaa kaarkiisii uu dib ugu celiyaa haddii confirm baad dhahaysaa marka confirm dhahdo lacagtaada toos bay u baxaysaa kadibna gmail-ka fariin kugu soo dhacaysa waxaa lagu odhanayaa your withdrawal
maxay tole lacag la bixidaad waa dalbatay haddii kale waxaan odhanaya waa lagaa diiday ma fahanti marka qofkii xaggaa cilad way ka qabsan insha allahu tacaala wuu ila soo xiriiri doonaa sida real accountka loo furtana cashar waan ka duubay isagana descriptionkan soo dhigi doona insha allahu tacaala qolkeena telegramkan insha allahu tacaala waa kusoo biiri doontaan ee weyn marka dhammaantiin aad baan idin salaamayaa waxaan rajeynaya inay dhammaantiin wada fiican tihiin sana cusub inoo bilaami doona updates cusub baa inoo bilaami doona academic SWF marka waxaan rajeynaya in academic SWF na kusoo biiri doontaan qof kastaan oo ka furtay linkiga islamic account aan leenahay si qofkii aan uga caawin karno lacagtiisii inuu la baxo ama maxay hatolay uu isticmaalaba marka dhammaantiin aad baan idin salaamayaa qof kastii qofkii kula baxay isagoo la baxay hore ula baxayna iminka banka weerka kula baxo banka weerka wuxuu ka maqnaanaya 2 ilaa 3 cisho ee lacagtaas ka maqnaanaysa ugu badnaan 4 cisho ay kugu soo dhacaysa marka kuma jirto laakiin sabti axad kuma jirto waa maalmaha kale aad baan marka dhammaantiin idin salaamayaa linkiga islaamiga aan xagga waxaan soo dhigi doonaa ee brokerka sidoo kale qoraalka yar ee labada koodhka iyo adresska isagana xagga waxaan soo dhigi doonaa sidoo kale telegramyadana xagga waxaan descriptionka wax kasta ka heli doontaa insha Allah taala ka dhammaantiin aad baan salaamayaa qof markuu doonayo inuu ama ay cilad ka qabsto doonayo aniga la soo xiriiro qofku marka hore hadduu akoonka furtay waa inuu ka furtay linkigeena telegramka yaala islaamiga akoonka iyo maxay tole ee la socda ee wata versionska kalaba waxyaabo badan linkiga ku heli doona insha Allah taala marka dhammaantiin aad baan salaamayaa maanta iga raali ahado marka insha Allah taala codka maanta wax ira xabiib bay ku jirtay marka dhammaantiin aad baan salaamayaa